malay maqlaa intaan bilaabin malay maqlaa walaalahay malay maqlaa bal ii soo jawaaba intaanan bilaabin malay maqlaa malay maqlaa malay maqlaa bal haa ii soo jawaaba merci de waa kaa haddii la maqla de waad mahadsantihiin walaalahayo in yarna waad iga raalli ahaanaysiin waayo duri bay ku dhacay bay ahayd laakiin cajaladdan oon ballan qaaday oon in badanba dib iga dhacday baan rabay inaan ila qaybsado cajaladda teemamkiisa iyo maxaanku dhaa maduucan ka hadlay waa laba maduuc ta ugu horeysa waxaan ka hadlay waxa weji waa arrin aad iyo aad ii taabatay oon raba inaan ila qaybsado in ummadda reer jabuuti dhammaantood in maxaafid iyo in macaarada ummadda isku jirtoo dhan ay isku dayaan siday xal ay u heli lahaayeen taasoo viyoolka hablaheena yar ee reer jabuuti ee da'da yar la viyoolaynayo tii u dambaysay ku dhimatayna ay mahada ahayd kii allahu naxariisto hablo kale oo iyakuna lagu dhibaateeyo ciidankeenu dhibaateeyen baa jirto berigii dagaalkii furuudka la dhibaateeyey gabdhahaasoo gabdha cafar oo hadda intooda badan yurubta joogaan oo markii u dambeysay greve defense bay kii belgique ku sameeyey macduucaasaan geli doonaa waxaan isku dayi doonaa bal wixii aan xal u arkayno waa arrin aad iyo aad ii taabatay oo xanuun badan markaad aragtay gabadha 16 jir iyo 17 jir iyo 18 jir la viyoolaynayo ay haddana soo baxday dekaniin lagu seexiyo taasaan balfaanleyn doonaa wixii aniga karaankayga intaa badan u aamusnaan baadhayena ee solution arkana waan soo dhigayaa ininkuna balood isku daysi inaad falaqaysiin oo hadday solutionada fiican yihiin lagu dhaqmo haddii aan wax ka tagana ku dartiin haddii kalena hagaajisiin mawduuca labaad een ka hadlayo teemkayga labaad waa ninka walaalkeena ee beljiga jooga commanda iftin halkooy mas-uuliyaddiisu ka saaran tahay masaakirka carriba iyo walaalaha cafarteen lagu laayay oo allahu naxariista leenahay iyo dadkii kale walaaleyna komiteyga gudbursiga lagu laayay markii kaafeedda baari qarax ka dhacay qaraxa kaafeedda baari ayaa sameeyey ayaa ka dambeeyey baltaana waa isla falaqaynaa bal intaan labadaa macdo horta gelin waxaan rabaa in aan ummadda reer jabuuti oo hadda ku soo badatay reseau socioga oo hadda ka hadlaysa iyo inta soo socotaba inaan tala siiyo waayo isma faaninaya waxaana shakhsi ugu horreeyay reer jabuutiya ee video intuu hor fadhiisto dowladda dhaliila intaanan taa samayna wixii aan anu ku bogsaday ee hidadiilada igu dhaliyey cabsidayga biyey inaan ila waagaan rabaa waayo
waxay noqotay markii ay fikraddu soo gashay inaan cajalad sameeyo oon video qabto oo hadda dhowr iyo 10 sano kasoo sokaysa oona hada shakhsigu horreeyay sameeyey aan noqday in reer Jabuutiya ee dowladda laga baqayo itaal kale ee dadka badan ee qaylisada badan leh inaan kritikeeyo anigoo og waliba dadkaygu Jabuuti joogaan maxaa iga keenay sideena waxa ugu dhaqaaqay talada inaan ummadda reer Jabuuti siiyo wixii horta isweydiiyey waxa su'aasha isweydiiyey markay ay noqotay inaan cajalad qabto oo wajiga la arko ciddaan hel la garto halkaan jooga la garto waxaan ka hadlan dowladda dhaliilayo waxay su'aashu noqotay war Ilyaasoo hadda baad fariisan doontaa dowlad baad kritikeyn doontaa dowladda dadkii oo dhan baa u shaqeeya dadkii oo dhan baa u xareegaya dadkii oo dhan baa u qayliso ah dadkii oo dhan baa daafici doona xoolay haysaa haddaad halkaa fadhiisto aad kritik ku samaysay kritikna way baranay adiga waa lagu soo weerari doonaa maxaa malaa ma qaadi karaysaa weerar ma qaadi karaysaa cay ma qaadi karaysaa aflagaado dee kolkaan soo sheekaystaan kolba haddii aan xaq ka hadlayo waan samayn alla ilaahay ma ummadayda cajalad u dambaysoon qabtay waxay ahayd cajaladii u dambaysay ma cajaladii u horreeyay waxay ahayd inaan idhaahdo waxba kama baqay haddaad maanta Ismaaciilo dadkayga wixii halkaa ku hadhay waxaan ka hadlay wixii faamigayga aniga inta la dhalatay inta ilmaadeer ruma aan nahay haddaad dariiqa soo jirso rasaas ku leysid qof weyn qof yarba wax alla wax iska bedelay ma jiro baan ku qabtay cajaladaasi marka waxaan ku talagalay waxa ay haddii lagu caayana oo adkayso haddii lagu soo aflagaadeen oo adkayso hadday dhibaatooyin kale ku timaado oo adkayso marka waxa dhici karta ummadda reer Jabuuti waxa la walaalaha reer Jabuuti iyagu inta ku jirtay inta ku jirinba war haddaad kolba aad soo fariisto cajalad waa lagu caayi doonaa loo aflagaadeen doonaa walaalo wax maan u qaadan waayo waxa dhibaya waxaan aad leedahay dhibaysa horo soco habqin ka hadal waxaad ka hadlaysa marka tiibaan aan ididilay gelisay oon hawsha ku galay oo ilaa maanta aan ugu jiraa maantana waxaa leeyahay ummadda reer Jabuuti dhalinay habliya namale ee soo fadhiistay shaashadda iyagoo la garanayo iyagoo isqarinayn dowladda kritikeynaya wixii dhiba sheegaya wixii in la hagaajiyo sheegaya waxaan ilaahay hambaliyo maanta way bateen hambaliyo baan ilaahay marka talabaad aan ka hadlay waxa weeye waa talabaad ummadda reer Jabuuti aan la hadlay walaalahay maxaad sugaysiin maanta ummad ka soo reer Jabuutiya waxa dibadda jooga dhibaatooyin badan la kulmaan waqtigii uu galiyay markay cajalad qabanayaan way nii soo bandhigaan cajaladda ma daawatiina maxaad sugaysiin oo dhaqaajinaya sidaad waxaan iskaga badishin oo dolarka u diideen marka bal haddaba imika waxaan geli doonaa mawduucii aan u soo fadhiistay kaasoo aad iyo aad ii taabanaya kaasoo aad iyo aad igu qaali ahaa oo markaan artikale badan akhriyey markaan u fiirsaday markaan Jabuuti dib ugu noqday madaxayga dib ugu celiyey oon ogaaday dee in ay dhacday gabdho yar oo 17 jir iyo 16 jir la kufsanayo oo dhibaato loo geysanayo ay gabadhaasi qofay ku cabata ay lahayn waxaan leenahay kolka waxaan haddana imika markaan baaritaankii baaray waxaan ogaaday dee in mar dhexdeeya ay sameeyeen ururka dumarka UNFD-gu sameeyeen saliil u qaybsan saliilka waxay yiraahdeen hadda internetka aad geli kartiin UNFD baad ku qoraysiin UNFD beeshka markaad gashiin waxaad arkaysiin koolonka saddexaad waa koolonka waa qaybta saddexaad u sameeyeen wixii dadka dhibaato ku dhacdo violence conjugale waxay doonayaan wax noqoto marka xafiiska iyo waxay u bixiyeen centre d'études d'information et d'orientation waa CEIO u bixiyeen servicekaas gal waad arkaysiin istaatistiigi u dambeeyay sameeyeen wixii violence oo wixii dib loo geysto ama nin ama naag wixii ay soo qoray istaatistiigi soo hore waxa u dambeysay 2015 ka u dambeysay maanta waxaan ku jirnaa 2020 shan sano wixii dhacay ma hayaan kuma jirto meesha marka dhibaatadan aan maanta ka hadlayo anigu waxa weeye waa dhibaatada gabdhaha yar violka loo geysanayo taasoo aad u badatay taasoo u xanuun badan wallahi ma imagine karaysiin gabadha 16 jira ee la fuulo ama qof mid fuulo ama shan isku tagaan ama 10 isku tagaan ay violayaan oo meel alla meel ku cabata ay lahayn foolxumada dhibta jirto weey gabadha yar oohintooda iyo alaacalkeeda iyo dhibta soo gaadhay qayladii samaday saan u tagaysaa toddobada samad bisaan u tagaysaa annaguna waxba kama qabaran xitaa dadkii u dhawaa ee waalidkeeda dhalay ayaa waxaan u qaaysta wax khatar oo ceeba oo haddii xitaa u sheegi la oran lahayd waa la kubsaday inay iyadaa dilaan ay sii caayaan yiraahdeen adaas ku wacan
adaa waxaan isku geystay adigaa baxay adaa habeenaan ku fadhiisiin weynoo fadhiisan waaye adigaa inamadaas ka laadlaadinaya ay yidhahdeen waa qofkii ku cabanaysa kolkaa gabadha yar afkeygii juuqa gabay ma hadli karayso ma odhan karayso waxba halkaasaa lagu farxumeeyey farxumaaskuna kama dhaco deen maxaan ku dhahdaa in ay si salaaxoo naxariisla ay u fuulaan maahine waa feedh iyo leed iyo wax kasta u geysanayaan yartaa yar markay guriga timaado iyadoo socon karila iyadoo walwalaysa iyadoo ooyeysa oohintays ka beenaysaa gurigay soo galaysaa uma sheegi karayso hooyadeed uma sheegi karayso aabbaheed waayo iyaka hadda u sheegto iyaguna wax ceeb bay u haystaan marka raallahada markaa su-aashii aanan isweydiiyey kolka iyaga su-aashaa isweydiiyey waxa yidhi war dadka reer jabuuti hablaha yar reer jabuutiya ee la faraxumaynayo ee dhibaatada loo geysanayo maxay u hadli laayihiin weydi waa su-aasha waxa su-aasha jawaab u baahan jawaabteeda markaa helana waana dawadii helade marka caruurtii reer jabuutiya waxay u hadli laayihiin hablaha yar waxay u horta kow reerkii ay ku soo ooyi lahaydee waalidkeed walaalaheed aabbaheed ayaa u naxariisanaynu dili oo dhahda waxaas ku wacan iyada garaaci oo u hanjabi warkaaba inay iska aamustay hadli weydo haddana waalidkii maxay ka baqayaan ka xishoonayaan waxay ka xishoonayaan wax kale maahane gabadhoodiiba le waa la farxumeeyey sadir gabadhii haddeed beker maaha gabadhii qof guursanaya ma jiro xaafadii baa ku sheekaysan dhibaato badan baa jirta waa taan hadlayana waxa weyi haddaba dawasean u helaa sidii reerkani gabadha dhalayna ay uga baxaan waxaan cabsidan iyo xishoodkan iyo taabuugan gabadha yarna ay uga biqin ay ula hadasho waalidka u tara raggaas ay farxumeeyey halkaaba lagu farxumeeyey kolkaa maxaan u baahannahay weji waxaan baa kolkaa sensibilisation loo baahayay sensibilisation ayaa looga baahayay dee ummad badan oo free Djibouti looga baahayay ayaa looga baahayay markaan tirano dad badan baa halka soo sheegi karaa oo gurubyo badan reer Djibouti soo sheegi karaa oon odhan karaa inay hawl galaan bay u baahan yihiin waa society civilka loo baahayay waa corps medicalka loo baahayay waa jurist baa loo baahayay waa UNFD-ga loo baahayay waa dumarka dariiska siraan u baahanay culumadaan u baahanay enseignant-gaan u baahanay macalinka waxaan u baahanay media-gaan u baahanay markaan intaa isla helno waxaan rabaa inaan nii sheego qolo kasti waxay qabanayso iyo siday uga biinayso gabadha yar cabsida siday uga biinayso waalidkan dhalay gabadha ay uga biinayso waxaan taabuukay gabadhiina la fulay lama guursan doono waa la farxumeeyey laga sheeg inay waxaa dhan ka baabi'ino ay dadkaas hawsha galaan bahawshii u galeen u sheego waayo ma baan imika waxay sameeyeen waxaan ku dhahay xafiis bay sameeyeen CEO la yiraahdo Centre d'études d'information iyo d'orientation ha sameeyaan imise qof baa soo wacaysa weji ma dhici kartaa gabadha joogteenta garaacay tara waa la ifulay xagranta hadeed gabadha may kartaa ma oran karaysaa haddana ha tiraahdo iyaa garab joogsanaya haddana ha tiraahdo xeerarka daafacaya maxay yihiin maba jiraan madaxeer adduunyada meel kasta oo joogta ilaa Soomaaliland hadda adeegtay waxaa jirta xeerar loo sameeyay luwaha la mariyo baarlamaanka oo la mariyo qofka ciqaabta dhibaatada gala lagu dacweynayo oo meel laga soo haray haddaba annagu ma lihin luwaagi ma lihin marka taasaan leeyahay bal waxyaalo badan in la sameeyo oo dadka laga baabi'iyo cabsidan gabadheer cabsi laga bay waalidka ka baqayso cabsi laga baabi'inay maxkamadda tagto cabsi laga baabi'inay police u tagto ama jandaar u tagto ay tiraa waa lay farxumeeyey marka haddaba sii rabnaa weji waxaan rabaa waxa weji wax kale maaha walaalo inkuna intii fikrada ku dara waxaan rabaa inay waxaan joogsato waayo waa dhibaato hadda imika waxaa kusoo birta article in yar qoro in walaalooyin reer Djibouti qoraan garanaya ay hablaha meesha ka shaqeey u warameen hadda baryaanda waxaa kusoo birnay kaliya la siiyo qofka kaliya baa la siinaya kaliya baa seexinaya waa laga danaysanayaa waa la iska hoynaya marka imaginable gabadha reer Djibouti ee la xoogay ee la dhibaateeyay ee kolkay xaafadda timaado hadli karla iyadoo aamusan iyadoo meel kasta xanuunayso iyadoo walwalays iyadoo cabsi ku jirto markii guriga timaado reerkan la hadli kare waxbana u sheegi karin oo halka haddana la hawlgal kaale guriga masax kaale waxaan samee waayo iyadoo xanuunka haddana wixii sameeyaysa habeenka sii seexatana way ku ooyeysaa wallaahi beenimo sheegay waxaan aniga la tahan malayan dareemayo qayladii ay gabadha yar ay iido iyadoo 16 jira 17 jira oo hablaheeniye dhibtaa soo qabsata markay qaylaan wallaahi beenimo sheegay duudna igama jiro inay 7 sanadood qaylada oohinteedu gaari waxa halka noga soo bax noga noqoneen wallaahi ma garanayo inaan xala tahay in iqaabana loo soo dirayo in dhibaatana loo soo dirayo way aamuskeenan baa complice
وواحد ربع عليه إمي كشلة طول واحد نركني دوم الدزويد كي قبل الروت تدبت ونجرا ورايح على السبيح الله نحرص عليه وأما هذا ودوم الدزويد كي بحي واحد أنت لقاتي لقراعي للدلي لفرح بي لجوجوي ميت كي جل صادق بدم تجرتها وتدبت تجر أبوانا وليه أنت ريج جبوتي أن حدا أب حدا وابا في الاستاسيون اللي لا إلا على السبيح تتوي في عنتها لكن رهانتي ما حيكون دم يدك لقبت ما حيكون دم بيه بصدق سنة الله حري ما بل السود دايي ويرير كوريرس كده بعتيه سنبهين أقوى ما يهين ما دتكي بعد ضلنا هاي ولا عجيب بعيين يركي رجي ما طريقة ده مسك جوجان والسوق يسك السعودان يرتي كنا فويدي وقبل دي النوع كلوج والله آد بنو حماد آد بنو حماد تاسون قرنا يمي كان ليه وايوان أجهي مرة بإن عن دولة الجبوت دلك الجبوتي عن دل بكون كومباريرا دلك عين كذا كذا على هندية سابا كذا على سوماليا بلد ضحى كذا هل كان كلام قدش عين كما كذا كينيا وحن با كذا أمريكا التي مرة بين قلب بكون كومباريو وحي دبعتدين بلانو كان حلينه دبعتدون آد بوحنتاي وهنا كدو أنت دولة ده كلا تري وحويج وان جبوتي وان كجوجي وان كسر كوري أنت أصلا كسر لك هذا مركو شخص بالآدم كوجات عنو وجات كأفكر قليو هدو قفك الشخص كا وليه حاس وإيمان سدو وحاس كي سابو باهيدي سكتريا دلين كلا جرتيكو وحلا صاحبات كلا إنك استحارانتا إن جوركود عروس ورتي اللي سكتجين هدنا وايس كعدها أو بين مشاغلنا إنما كلا صاحبات كلا أو يكون إسك السماية محاو كرا هذا زيندا إسك السماية أي قبردي إنكو رالكيه وأوكي waxaa soo baxay group kale oo intaaba ku jirin saaxiibana lahayn isnaana lahayn budcada oo terrorista oo hablaha xaafada ku sugaya tii la darba dariiq qorsanay midna uguma tagaan 5 iyo 6 iyo 10 bay ku tagaan bal imagine gabadhiina gabadha dhash oo dhori 20 jira oo dariiqa u baxday ama wax soo iibso ama danta casha u baxdo ama ha socoto aska soo neefso gabadha saaxiibada u tagaa oo dariiqa laga qaato la violate ka waran dib loo geystay oo kolkii la violin xaafada kolkay timida ay dadkaygu u sheegin kareen way dadkaygu ka baqayaan waxay la gabadha hadii la violayo waa gabadha aan bikir ahayn waa gabadha ceeb hadeed madaxa ka saaran waa reerkooda ma ku sheekaysan wax naga soo gursanay ma jiro waa khalaas waa inay iyadoo dilaan iyadoo walaalkeed iyo maxaa ku raacdaa iyo hooyadeed iyo aabaheed iyo ilmaadareed bas ku tagaan iyadoo dilaan adigaas ku waxan adiga waa sida gabadhan ay maxaa ku raacdaa ay u yeeratay violka ayaa laga dhigayaa yartaar wax u miciina ma jiro waxa aamuska keenay waxaan halkan uga hadlaynaa wax kale ma anigu inta badan bay qaateen waxaan u fiirsan cirifka ka eego waxa igu noqotay waxa weeye inaan bal xal inaan helno halkaan wuxuu yahay waxa weeye war caruurtan gabadhan yar ee la violeeyay oo inuu violku ku badan yahay waan kule waayo qof kastoo jaad cuna habeenkii patrol sameeyaa marka uu ku badan yahay ay hadday baxdaba la violeynayo waxaana gabadha yar hadii la violeysaday uu kuuraash u yeelan ay u soo bixi oran waa la violeyay waalidkeena ugu oran halka xafiiska u dhowna ay u tagay ay ku sheegay oran waa la violeyay wallahi dib weyn weji allah haddaan runtan ii sheego dhibaato weji waliba intay dhibaatada soo martay ayaa og ama inta asxaab la gabadha yar waxa lagu sameeyay ayaa og maxay la kulmaan hablahaas waxa dhici karta loo tagay la violeeyo barkood baa uureysta ha uureystaane haddii uu clinic ku dhaato oo avortement u sameynaya dalkeena waa kama nooc lama sameyn karayo avortement lama sameyn karayo kolka hablaha yar ee da'yar waxay isku aaminaan dumar waaweyn oo waxaan cilmiga science-ka iyo jirka bini'aadamka aanan garanayn oo madibe iyo waxay doonaan ku sameeya halkaana degaa weyn u geysta bal dhibta ay kolka hadday uureysato ay tabtay sheegi weydo intii reerkoowa ay tabin caloosheeda buura la arkin ayay isku aaminaysaa dad aan waxaan u naxariisan oo cilmina u lahayn dumar halkaana sakeelay kala kulmaysaa hadday ku dhimanba haddana waxaa dhici sakeelo badan oo halka dhalmada kala kulmaysaa intaana waa cabsiyo waxaan qaribeelaa waxaa ku dhici kara gabadhaa yar la uureeyey gabadhaa la violeeyey ee la uureeyey in haddana boqolkiiba waan ognahay reejibu dad farba inuu siidaahayo inuu siidaaga qabadsiiyo way boqolkii 20 ilaa 20 ku way noqonaysaa 20 ilaa 30 kun oo reejibu tuu siidaagu haya oo duuraya oo qofna u sheegay bal wallahi dhibta eega yarta yar ee da'yar ee saysaya ee la uureeyey ee uurkii haddana loo raaciyay siidaa loo raaciyay
cudurkii la qabansiiyey balaya ku miciina ayay ku ooyi ayana la hadlay wallahi waa dhibaato weyn oon u baahannahay inaan wala kacno oon hadalno oon solution helno aniguna waxaan halkan u fadhiyaa waxa weeye kolkaan wixii aan ka seexan kari waayo aan dhinac kastaba ka eegay aan wixii aan xal u mooday ayaan rabaa in soo bandhigo qolo kasta oon group kasta oon soo sheegaba waxaan u macnaynayaa waxay qabanayaan ay samaynayaan ayaan rabaa inaan u sheego bal walaalahay intaana ila eega bilaadan baan ahay waan khaldami karaa wax waan ka tagi karaa waxaa rabaa inaad wixii ku dartiin waxbaan si u dhigi karaa waad sii wanaajin karaysiin marka horta waxaan leeyahay waxa weeye waa inaan horta dalka Djibouti waxaan laboratoire medico legal oo ADN test lagu test gareeyo wax qaali ma ilaa Puntland baa samaysatay Puntland dalkan gobolkan Puntland ee Soomaaliya kamid ah ayaa leh waa laboratoire muxuu faa'iido leeyahay laboratoire wixii kale cream la galan ku baari karaan kana way ku baarayaan kolkay gabadheer ay tiraahdo waa lay fuulay waa la eegi hoosteeda la eegi waa laga soo qaaday wixii dheecaana waa la isku eegi si dadka loogu khaldamin oo qofka si loo qaban ayaa loo sameyn laboratoire-ku waa shay aad iyo aad u muhiim ah oo u baahanay sidaan qof loogu khaldamin marka labaad waxa loo baahan yahay waxa weeye madaxweynaha hadda talada haya Ismaaciil Cumar Geele war ma waari sida wax ka hado waan ogahay haddii aan maanta dal aan joogno dimuqraasiya waxaan la hadli lahaa la xiriiri lahaa maxaan ku raahdaa baarlamaanka dibitiyada fadhiya laakiin dibitiyada fadhiya waan ognahay waxay qaban karaan ma jirto raalli hada waxay qaban karaan ay raalli telefoon baa iga soo galeen waxay qaban karaan ay samayn karaan inay jirin baan ogahay waa sidaa daraaddeed baan nii leeyahay sidaa daraaddeed baan ula hadlayaa isaga oon ka leeyahay ma waari sida waxa ka hadhan walahi waxa weeye inuu luwaa mariyo luwaaga qofka reer Djibouti ee gabadh yara ee la violeeyo dadkay ku caddaato kolka ADN la sameeyo marka ankeed la sameeyo marka baaritaan culus la sameeyo in la soo ogaado ilaada hebel ayay ku caddaatay wixii violkaana geystay in iqaabo adag loo sameeyo oo ugu yaraan loogu yareen dhowr 30 sano 3 sano la xidho qof bilaadan noloshiisa la baabiye gabadha la violay weligeed ma iloobayso waan ogahay malaha aday imika gabdha ay ku jiraan waxa soo marin waxa la walaalahay raalli aado magacii ragga nagu leeyahay raalli aado inta kulli wax ma taraysay waxaan rabnaa inay wax iska bedelaan oo gabadh yaroo dambe la violayn baan rabnaa marka tiigoris waxa waa in la keeno laboratoire la sameeyo ADN kaasi waa medical legal lagu testeeyo ADN-ka talabaad waxa ay ninkan talada haya madaxweynaha waxa la kulli ma waarisa wax ka haro bal at least caruurta yar ee shabooyinka gabdhahaaga lamida ay barkooda ay ka yar yihiinba bal u samee xeer assemblyga u maray qofkii dhibaatada geysa lagu ciqaabo ay dhaaftay sheekada xun la sameynayo ha loo dhisi iyo ha loo sameeyo magaca la bixiyo waxa dhamaato walaalahay inta hadduu karayo hadduu sameeyo way wanaagsan tahay ambalya ma kulay maxaan haddana kaloo rabnaa si waxaan dawo loo helo waxaan rabnaa in gabdhaha dareeska sida ee booliiska ee jandaaranka aan maanta ku farxayno dad cilmi bartay yihiin dad dareen la yihiin dad aqli la yihiin in formation loo sameeyo formation maxaa loo sameeyo weji formationka waxaa loo sameynaya waxa weji waa formation u gaara violka hablaha yar maxaa la barayaa xeerarka la barayaa waxaa la barayaa si su'aalo loo weydiiyo qofka dhibaatada ku soo dhacday waxaa la barayaa wax la yiraahdo psychology ba la barayaa si qofka naxariis ugu yeeshaan way waxaan hablaha u leeyahay wax kala ma mar raba gabadha reer Djibouti ee 16 jira inay u tagto nin jandarana ama nin booliisa oo halka isaguna ila ka farqabso way kow iskuma aaminayso laba markuu arko wuxuu arkay qof hadeed bala macna oonan sharaf lahayn dadnimo lahayn waxba lahayn waa taas waxa la hablaha maanta waan ku farxanay habla badan reer Djibouti jira
oo gendarmeraa jira oo cilmilaa jira oo booliisaa jira oo cilmilaa jira kuwaas in loo sameeyo dadka juuriisku xeerarka baraan dadka cilmiga psychologiga baraan dadka dhakhtaradu cilmiga dhakhtarka baraan ay gabadhaa la baro sida ankeetka ay u qaadayso ay gabadhaan kalsooni gabdhaha yar dhibaataysan ay kalsooni si kalsooniya su'aalaha u weydiin lahayeen si kalsooniya gabdho ugu jawaabi lahayeen waa tii saddexaad ta kale rabna waxaa weeji haddana waxaa weeji waa haddana gabdho yar gabdhaha reer Jabuuti iyakuna cilmiga dhakhtarnimada sameeyay dhakhtarada ama infirmiyeya kuwaana iyakuna inay gargaaraan ama haddii kuwa psychology sameeyay jiraan psychology waxay doonaan noqoto wixii cilmiga maskaxda ku jira ay yaqaaniin kuwaana waxaa rabnaa inay iyakuna ay gargaaraan ay gabdhaha yar garab joogsadaan ay kula talaan wixii caafimaadka ku saabsan waxaan kaloo rabaa waxa weeye maanta habla badan oo waxaan leen maasha Allah wax bartay ay haddana barkood yihiin maxaan ku raacdaa in cilmiga draaga barteen ama avokaayo u yihiin cilmiga draaga barteen kuwaana waxaan rabnaa waxa weeye inay ururka samaystaan ay hablahan yar gargaaraan ay u macnayaan xeerkooda marka intii aan soo sheegay dhakhtarka xitaa kuwa dhakhtarku haddii ay occupy yihiin busy yihiin gabadh quraato meesaan wax baratay ama gabadh quraato maxaan ku raahdaa psychologa ayaa madax noqon karaya waxay shaqaysiin karaan ardayda kuwa maanta jaamacadda ku jira ee qalanjilin doona Britole ayay u diri doonaan iyadoo dusha ku kuwaafeenayaan dusha instruction ku siinayaan hablaha yar baa u tagi doona oo la sheekaysan doona dadka maxaana dararabnaa waxa weeye campaign de sensibilisation inuu irtideegan ku gaabto inuu madaxweynaha Ismaaciil Cumar islaantiisa faanayo inuu alihiisa ka baqo laga hadlo oo wax laga sheekeeyo oo waxaan laga hadlo oo ummadda reer Jabuuti dhibaatada ku dhacday raado wixii la violayo numberka contactee ururka u tag waxaa samee waxaa qabo waxaa la yiraahdo marka waxaan haddana aan rabaa waxa weeji haddana artiistku halkee ka soo gali karayaan dadka artiist waxay ka soo gali karayaan inay majaajilo sameeyaan kullay way igu dhaamaan halka ilaahay baa karaamo ku siiyo way garanayaane bal anigu wixii haddii tale la noqoto ay sameyn lahayeen majaajilada ay sameyn lahayeen baan wax ka soo dhigay iyaguna hadday doonaan wax ku daraan ama wax ka bedelaan laakiin waxaan rabnaa in sensibilisation ummadda loo sameeyo ay iyagu halka riwaayado kala sameeyaan riwaayada sketchka ay sameeyaan waxaan rabnaa waxa weeye inay ku qaataan 2 ka waa gabadh yar oo 17 jira oo la fuulay oo la violeeyay oo qofay ku cabata iyo qofay ku dhiba wax u sheegato eedeeda alla garan la gabadh yar oo 17 jira oo la violeeyay oo gabadheeniyo kala oo waxay la hadashay iyo waxay tiraahdo la oo halka ku dhibaatootay uur qaaday dumaradii waa la u tagtay dumaradii ka soo ridayeen halka dhibaato u geysteen way dhimatay ma oranayna way nooshahay laakiin sakeela badan oo halkii dhalmada iyo dhibaatooyin badan ka qabsaday gabadha dadkayga uma sheekarayso way baqaysaa way hadda u sheegto waa la dilayaa scenario-ga labaad waxaan rabnaa gabadh yar oo iyaduna saawna 17 jir ama 16 jir oo iyaduna la fuulay laakiin iyadu support badan heshay support ka helaysaa support ka helaysa waxay ka helaysaa in waalidkeedba ka helaysaa oo iyaguna maskaxda loo hagaajiyay oo loo macneeyay gabadheedan inay dhibaato iyadu geysan ay gabadhoodan ahayn gabadh viol kaale ee fuulatir ay ahayn in waxaan ceeb ahayn qof kasta ku dhici karayo gabadhaana la guursan karayo iyadoo la violeeyay la guursan karayo ayaa laga dhaadhicinayaa kolka laga dhaadhiciyo gabadha yar waa gabadh yar oo kalsooni qabta aaminsan garanaysa in dadaba joogaan hadday noqoto avokaayadii noqoto hadday noqoto maxaan ku raahdaa dhakhtaradii noqoto hadday noqoto bulshadii rayidka noqoto hadday culumadii noqoto iyo hadday noqotay gabadhaan arday tahay waxaan rabnaa macallimiintii u dhigayay inay kuurka xafadda ugu keenaan ay u yimaadeen carruurtii la dhigan ay u keenaan si carruurtaan support u siiso gabadha inay keli joogin baa la rabaa in la ogaado ay gabadha moraalkeegu cirka taagan yahay oo bulshadii garab joogto oo qof kastaba hiil iyo hool leeyahay marka waa doo difference weeye mar waa gabadh yaroo iyadu waxay la hadashabala
oo dhibaatooyinka la soo kulantay marna waa gabadh yar oo dadkii bulshadii dalka ay u kacday waxaan rabnaa intaa wax kala midna waxaan ay joogsadaan baan rabnaa walaalahay oo qaylada iyo dhibta iyo oohinta ka soo maraysa gabdhaha yar on peut pas imaginer gabadh ma dareemi karayo laakiin haddaan imagine dhex galaan doono waa wax aad iyo aad u weyn oon rabno inay wax iska bedelaan marka xeerka la mariyo informationka la geliyo kuurarka loo sameeyo kolka gabadha yar markay dhibtaa ku dhacdo waalidkeed oo laga dhaadhiciyey waalidkeedoo maskax loo celiyey waalidkeedoo laga dhigin gabadha yar waxaan iyadu iskugu wacantay laga dhigin oo wanaagsan baa gabadha yar iyadoo kalsooni qabta oran karta xalay halkaa baan joogay halkaa baan maray ninkaasaan aaminay saaxiib baa la ahaa waan sheekaysanaynay halkaa bay u tagay raggaa oo dhan bay igu yaadhay marka waa dhibaatada jirta in gabadha yar iyadoo kalsooni qabta ay ka tiraahdo hooyo waxaabaa igu dhacay islaantii iyadoo kalsooni qabta gabadheeda gosha gashato ay tira hooyo waan kuu joogaa wixii xeer iyo dacwad baan la maraynaa dadkan marka way garanaysaa waa ninku reertadeeg inuu sensibilize wuxuu u baahan yahay inuu dadka loo sheego meelaha ay tagayaan waa number 1 xerada booliiska ugu horeeya xerada jendaanka ugu horeeya kolkay tagto waxaa la kulmaysaa hablaha yar nii soo sheegayo in aad ugu farxaansannahay habla cilmi bartay yihiin oo weliba formation loo sameeyey si uu la sheekaysan dadkan dhibaatada caynka ku dhaco waa kalsooni dacwadii ankeedkaa bilaabmay markii labaad waxa u tagaysaa waxa weeji waa dadkan cilmiga la juriiska oo xeerarkii iyo wixii macneynaya way fiican tahay haddana good marka dambe waxa u tagaysaa dhakhtaradii u tagaysaa oo suudeynaya wax degaa inuu gaadhin dhibaato cudur haddii uu ninka raggii ilaahay dhibaato u keen gabdhaha yar violayana hadday cudur siidaa iyo cuduro kaloo maxaan ku dhahdaa MST la odhan jiro maladi sexual transmissive la odhan jiray hadday ku beeraanba in laga daweeyo inta hablaha psychologiga sameeyey ay gabadha madaxeega iyo maskaxdeeda u dhisaan ay garab joogsadaan waxaa looga baayay wasaaradda tacliinta hadday tacliinta dhigato inuu macallinkii u dhigay macallimiintii u dhigay xaafadda ugu yimaadiin ay u soo kaxeeyaan caruurtii la dhiganaysay ay kuwaanay tusaan inay garab joogaan marka gabadha haddii intaa support ay ka hesho way fiican tahay waxa u dambaysan ku daray waxa weeji xaafadda hadday noqotiyo hadday bulshada rayidka noqotiyo waxaan ku daray waxa weeji haddana waa roolka UNFD ka ciyaar lahayd UNFD ururka dumarka halkii ka ciyaar lahayd waa anigu maanta ma ahayn ninkii waxaan ka hadli lahaa solution badan dooni lahaa waa dumarka ururka dumarka inay waxaan doonaan haddii dumar baan horumarinay iyo dumar baan hagaajinay laakiin haddana waxaa dhici karta gabdha yar oo 60 jira inay fara badan yihiin maanta inta caawa inta la fuulay ayaan tirakoob aan lahaynba iska badaa sanadkoo dhan haddaan xisaabinayno sanadkoo dhan xisaabi haddaan caawa intii la farxumeeyey ayaa tirakoob lahayn ee ooyeysay xaafadad ku ooyeysay kolka ururka dumarka waxaa leeyahay haddaad samayseen xafiis u saabsan oo tirahdeen CEO tirahdeen centre d'études d'orientation centre d'études d'information d'orientation tirahdeen haddana bal inta ku daro gabdhaha yar iyaguna inuu ka soo qaabila waxa u raateen waxa weeji kulley raashin waad buuxdiinay reerkaa dhibaataysan ee gabadhooda laga farxumeeyey bal intay haddana caymadayaana xeerka dacwadda ku jiriyaan waxay baska ku raacaan iyo raashin yar siiya hadday noqoto 5 bilood hadday noqoto 6 bilood waxba nigama tiraysa hal jooyad bariisa iyo saliid oo siisiin iyo 30 ku raacaysa aleerituur ku raacayaan oo tiisiin marka qofka bilaadan gabadha bilaadanka intaayo ummad ay daba joogto intaayo ummad ay gargaarayso intaayo dumad ay support siinayso mar raysma oraysa wixii ku dhawaaq sidaan bay leedahay ka kac ka kor ka soco ruuso laakiin bal u fiirsada haddii qofka waxba loo qaban waayo dhibaato jirtay leedahay baraan leeyahay okay kolka waataan ummadda reer Jabuuti walaalaha leeyahay xaafidii mucaarada maanta ma taagna siyaasad politik maaha maanta waxay taagan tahay waxa weey warsheen badbaadin xarunteena hableena seenu badbaadina ona leena ka baqna on xeerar u sameeynaa oo nidaamyo u sameeynaa oo gabadha yar maanta 16 jirkay la soo fuulay ila soo farxumeeyay markay xaafadda timaada hadli karela oo halka wali waalidkii waxba ogeyn qofkii hore iska aamusan haddana hawl kale u dirayaan iyadoo xanuunkii qabta maskaxdeedii rabishan tahay haddana halka la leeyahay hawlo soo qabo weelasha soo meed dharka meed xaafadda kare waxaan sameeyay balaag dhibaato dhig mana hadli karayso mana oran karayso hooyo xanuun baa yahay hooyo waa la soo farxumeeyay
waa laysoo dilay hooy waa laysoo fuulay waxba ma odhan karayso bal imaashinay markay hawlihii kale guriga loo diro ay dhammaysay aqalka maqsiga iska gasho oo madaha kale iska seexanayaan iyadu ma seexanayso way ooyeysaa way dhibaataysan tahay qofay ku cabata ma haysato waxa quraa qof halka quraatee laga maqlayo waa allah oohinteeda iyo calaacalkeega iyo xanuunkeega iyo dhibteeda ayna iloobeen intay noosha iloobeen samadaysaanu tagaysaa samada markay tagtana wallaahi ma garanayo waxa annaka nooga imanaya ma garanayo waayo complice baan nahay de something complice haddaan ka hadli laanay haddaan solution doon laanay nous sommes tous complices waataan leeyahay walaalahayo si degdega inta aad kartiin isku taga fikira doondoona haddaan wax ka tahay ku soo dara intii aan sheegano haddana ummadda reer Jabuuti aan ugu celiyo waxaan u baahnay laboratoire baan medical legal oon ku testeyno ADN-ka waayo ma rabno in shakhsi reer Jabuutiya oonan dambi geysan in lagu dhibaatay ma rabno baaritaanka haba la sameyn waxaan rabnaa habla reer Jabuutiya maanta way buuxaan oo askara oo jandaarana oo hablaa oo waxbartay way jiraan in iyakana formation loo sameeyo formationka loo sameyn muxuu yahay baan formationka loo sameyn wuxuu yahay wax kala ma waxa la barayaa habka qofka bidaadanka su'aalaha lagu soo saaro waxa la barayaa habka qofka loola dhiil garay qof dhibaato caynkan gaadhay ayaa la barayaa marka taasaan u baahan waxaan kale u maahan in hablaha dhakhtarada bartay ee infirmiyeya in iyakuna soo garab joogsadaan ay reerkaasi dhibaatada ku dhacday ee gabar la violay intay doonaan noqoto way karayaan iyagu hadday hawshu ka badata xitaa maanta waxa jirta habla yaroo fara badan ay kuwaafeyn karaan dusha ka joogsan karaan oo reer Jabuuti jaamacadaha jirto infirmiye soo dhameynaya ama soo dhameynaya dhakhtar soo dhameynaya mid quraata dusha ka joogsan karta kuwan bay u diri kartaa experience u noqon karaysa marka artiskina wixii laga rabaa culuumadina waxa laga rabaa culuumaduna iyagu waxay inay ka xadiisaan ay ka hadlaan ay u aqli celiyaan waalidkan gabadha kolka la soo fuulo isagu si kale u macnaysanaya ee waxa quraatay isaga dhibku ay ku weyn tahay gabadheedii haddii la soo fuulo la maqlo wax lama guursanayo naag lagama dhiganayo baana raacaysa inay iyaguna aqli celiyaan ertadeeguna hawsheeda way ahayd inay qabsato ay u sheegto campaign bay way sameeyaan dad baa lacaga siiyo publicity u sameeyaan way soo dhigi kartaa haddii qof la fuulo haddii tuyar la fuulo waxay la xidhiiri kartaa inta service la xidhiiri karto inta meele tagi karto si ay u kala tagi karto halkay ku yaaliin telefoonadoodu intay ka heli karto gargaar marka qof la fuulo gabadha la faraxumeeyo waa gabdhaheeni la faraxumeeyo ay maxkamadda arrinta tagto in laga qariyo maaha wixii waxaa sameeyey ee waraabayaasha ee dulliga ee gabadha nolosheedii baabi'iyey in la soo bandhigo yaaqi laga tago markaas intaasaan u maleeyaa inaan wax ka tagi uma maleeyo haddii aan ka tagana walaalahayo ku dara baan leeyahay waxaan intii u dambeysay alaabtii u dambeysay waxay noqotay waxa weeji waa ikadi wax baan iska xirayaa marka lagu jiro information iyo sensibilisation lagu jiro waxa jirtaan mar hore article ka sameeyo ka hadlay oo wixii tala iga ana ka sheegay waa dhibta iyo dhibaatada ay leedahay markaad dal yar tahay eed ciidan fara badan keentid markaad dal yar tahay eed ciidan fara badan aad keentid for
faransiisku intaasoo kun buu leeyahay jabaneegu intaasoo kun ma u joogta shiinaha intaasoo kun ma u joogta maraykanka intaasoo ma u joogta talyaaniga intaasaa u joogta way fara badan yihiin isbaanyoolka jarmalka magaca doon u bax aad buu u fara badan yahay bal imaajine dadka ciidankaas haddaan ku soo koobnaba ka soo qaado 15 kun ama 20 kun ma nidhaan 20 kun oo dhalinyara oo rag u badan oo la dhaqaalaynayo oo saasho fiican la siinayo oo irbada lagu mudayo si jirkooga dareenkoogu adkaado bal imaajine oo salbateera ayna naagu joogin raggaas halkay ku biyo baxayaan halkay ku raaxaysanayaan ma ayay u tagayaan dhilooyin anu sameeyaan anu markoo dhilooyin xero kasi dhilla ka sameeyaan xero kasi dhilla Etoobiyaan dadka Etoobiyaan aan wixii ka shaqaysanaya leegaale warqadale ee warqadaha ku shaqaysan jiraan hal looga sameeyaa qalab prefabrication loo dhigay xero kasta oo halka ninkii Japanese ama Shiinuwa ama Mareykan ama halka ha tago ma ahayno hableen oo yimaado wayna jirtaa waxaan indhaas ka qaban karnaa way baahi badan baa jirta habla badan baa markii u dambeysay daawanayay waxay video nin Mareykan oo journalist soo duubay ku jirta ajirda meel kasaad ka heli karaysiin waa nin journalist caana oo duura markuu soo duubay wuxuu ka hadlayay prostitution uu ka hadlayay uu ka sameeyay wuxuu eegayay waliba campaign-kii buu galayaa intuu taxiga la socdo waa loo soo bandhigay maxaad rabtaa ma gabadh yar oo 17 jir rabtaa 18 ilaa 30 maxaad rabtaa ideed rabtaa hadan laga leeyahay ajirdood ka daawanaysiin ma Arab baad rabtaa ma Soomaali baad rabtaa ma Afar baad rabtaa waxa dhan buu soo dooranaya la dooran leeyahay waa kuwa fataalin oo shaqeeya ay baahidu geysay marka hotelku la tagaya hotelada Djibouti waxa xeeri jiray inuu qofka imanaya naag la iman warqad agdeneysans haysto xeer ahaan laakiin wuxuu tusayna waxaanay jirin ay wax ka sii gudbatahay lacag yar la siiyo tahay hotelku la tagaya way ku jirtaa ajirada gabadha uma tagayo gabadha ma faraxmaynayo gabadhu yaa tiro 12 jira surwaal bay suxul seetaa sariirta fadhiisanaysaa waxa kala dahay balaana dharka iska dhig mayay kulay anigu waxa ma socdo anigu documentaire baan duubaya wax suujiye baan ka hadlayaa marka bal ii waran isku kayshay maxaa tahay xaafada baan galaa gabadha arbaan ahay bababa walaal marka ka kolku ka soo duubay hablaha yar ee dhibaatada haysato ee Djibouti hableeniya ee u keentay 20 kun oo ciidan oo inama u badan oo aad loo arbiyay inay u tagaan hableena indhaas kama qabanayno oo hableena barkood baahayiin ay reerka si wax dhig loo saaraba ay qasab ku tahay inay saacada gaal ka dhacdo haddaba kuwaas kolkay fuulaan ay violayaan ay barkood u ajila ka duubaan haday doonaan ay soo doon u violayaan say doon u yaraan macallimiinta leeyihiin waxay doonayeen sameeyaan gabadha ay ku dacwoon karaysaa xeerkee qaban karaya ninka askariga ciidanka ee Mareykanka Japaneega Faransiiska wuxuu doonaa noqdaba ee gabadha 16 jir intuu dhal la tagay ama meesha dol tagay farxumeeyay xeerkee qabanaya ma wax dhici kara in askarta Djibouti soo qabtaan maya kuwa bari laga duubo la sheegay iska sii dayn baa leeyahay marka waxaan rabaa wax kale ma kuwa caynkaas ee xerooyinka ku jirana in dadka reer Djibouti qalbi u yeeshaan loo tago askartooda mas'uuliyiinta loo macneeyo inay gabdhaha yar faruxmaysta ka daayaan innikii lagu qabtana xeel la marayo kulli baan ugu dowladda dowladda taalo naga weeyne arutooda ciidankooda qaadanayaan oo dhukaygan geeyna wadaan okay wuxuu daasay laakiin loo sheego horta gabadha reer Djibouti inaan reer Djibouti ama inama reer Djibouti faruxmeeyeen hadday hadli kari leedahayba ma u maleyseen oo karayso
xalay waxaan raacay nin militero maraykan ama faransiis ama jabanee baan raaco wii faraxumeeyey maba odhan karaysaba ilbelbin baa diir kamaba hadli karaysaba qalbi alla qalbiga ku tilahado waxaasaan sameeyey ma jirto marka waa taa daraaddii aan leeyahay walaalahayo allah hadduu allihiina yahay dhibtu way badan tahay habeen kasti gabdho reer jabuutiya oo da'yar ayaa la faraxumeynaya waxa faraxumeynaya u badanna waa dadkeenna inkastay ciidankana nii soo sheegay ajaanibkana ku jiraan wax xuraatoo xeer u dhigaya oo dadkaa ka qabanaya ma jiro wax xuraatoo la sameeyey si qofkan gabadha yar 12 jirkii la violeeyey si u hadli lahayd u sheegay oo waa la kufsado dhibaato la geystay ma jirto marka walaalahay waxa la inta goorta allahu hadduu allihiina yahay dhexdaan isqabsanno xalaan raadinno gabadh dambe oo reer jabuutiinay ooyin waa hablaheeni weji hadda baryaan dambe waxa soo baxay article inaanu soo qoray ay gabdhahan laba ururkana nii sheegay office-kan UNFD ku yaala laba hablood ka shaqeyn uga warrameen in hadda kaniinkii soo baxay oo kaniinkii caan noqday oo inankii gabadhii sheegaysanayay ama hadduu dareex ka qaadaba oo soo shirshidsan yidhaahdo in kaniinkaasi iyo uu sharaabka ugu daro markay dhacdana ka fara dhammaysto hadhowna xaafadda ku duuro laakiin hadday intaa ku dhammaanayso waa okay laakiin bal hadday uraysato ka warrama hadday uraysato soo dhibaato maaha hadday uraysato halkay tagay ayuu tagay dhibta kale jirtana waa ka markuu viol ku yimaado uu yimaado waxay reerkii gabadha dhalay ay baryootamaan ay weliba baryaan kii dhibaatada u geystay inuu guursado bal imagine xumaanta intaa leh si loo asturo uun waa dadkii xumaanta u geeyey ee dilay ay ka seexan laadahay ilaa intay nooshan ay loobi karin ayaa laga leeyay waa oorigaagii rakii faamigii gabadha dhalay ay soo baryaan faamigii inanka ama inamada ay soo baryaan miduna ha guursa leeyihiin wallahi dhibaatadu way badantay wax alla waxaan intaa ku daro waa dhibaato shalay mahaday ku dhacday 17 jir baa ahayd arsayn iska deganayd ardayad baa ahayd waxay raqaateen ay violeeyeen maantana raggii nin qoraato reejiwto meesha ku jira ama meel kala jooga oo ay odhan karaya raggii waa la xukumo intaa sana la xukumo ma jirto waxay ku dambeeyeen lama garanayo shalay haddana dhawaan dagaalkii ka sokoy markuu dhacay katarmaanti onskii habla reer jabuuti walaalihiin oo canfara ayay rag ciidan oo inay daafacaan ahaayeen ay farxumeeyeen waa canfarnimo taana waa dhibaato leedahay raggii maanta barbaa dariiska sida in dariiska laga dhigay ahayd inaan dadkaa daba joogsanaba ahayd gabdhahaas waxay sameeyeen inay balyarkaa bahalkan iska xidhay gabdhaha waxay sameeyeen grave the fam ay sameeyeen demir size waxay ku sameeyeen Belgium waxaana madax u ahayd Faadimo Daabale wallahi waan maasantay walaashay intaad hablaha garab joogsatay gabdhahan oo ni garab joognaa ka dhac maalin bay maalinteeda iman oo wixiina dhibaateeyay cidduu doonaha noqdo maxkamadda la soo tiigsan doonaa da'du doonaha yeesho allah ilaahay ma sagaa jir noqdaana insha allah bal allahna gargaarida waxaan sugnabooda waa in talooyinka la qaato ama talooyinka la keeno ama wax dhaama la keeno mali waxan baa sax oo waxan baa loojiga waxan baa soconay mali laakiin wixii taladeeda uma sheegay inta shay aan u baahannahay in ummadaasi aan cabsida uga biino ay gabadha reer Jabuutiya hadii aaw la furxumeeyo baritu aaw u tagto reerkooga tiraado hooyo raggaas ay ugu sameeyay aabba yarka dadkaas ay ugu sameeyay isla markaaba hawshii galaan
xerada ugu dhow ay tagaan ay xerada ugu dhow gabdhaha niisha shayga la tababaray la kulmaan halka aankee laga qaado dacwaddu bilaamato maxkamadda tagaan halka ay helaan avokaayo iyo dad gargaariyo dumar iyakuna halka ay ka baxaan ay tagaan dhakhtarka tagaan ay helaan hablo iyakuna gargaaraya oo garab joogsanaya waxay oo dhan kolkaan isku geyno dee waa guul baan gaadhinaa kaleenta ninkan talada haayana hadduu ana yidhi ma waarisa wax kaa hadhee bal xeer quraata samee oo ku iqaaba hablaha yara dhibaataa loo geysanayo markaasi sujeega intaa in ka badan ma garanayo way dhici kartaa wax ka tagay laakiin wixii ila muuqda solusiona waan sheegay bal ininkuna wixii aad kartiin ku soo dara haddii loo geyn karo unabdeegi iyo maxaan idhaahdaa xafiiskana ka dhex sameeyeen ee centre de waa CEO centre de maxay buu yahay banaan eeg si fiican halkan buu ku jiraa balowgaadi bam 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 mission service de maxay centre non sorry waa cellule centre manager alla hada waa cellule d'écoute d'information et d'orientation cellule d'écoute d'information et d'orientation waa ururkii dumarkaa leh union nationale des femmes de Djibouti haddaad gashiin siidkooga website siidkooga tagtiin waxaad ka arkaysiin baashkan nin furmaya halka ugu horeysa waa accueil halka kale waa propos de l'UFD halka kale programme ta afraad waxaa weeji kolonka afraad waxaa weeji waa centre d'écoute d'information et d'orientation waa ururkii dumarka ee Djibouti markaad halkaa kiligelaysiin waxaa nii soo baxaya afar qaybood afarta qaybood ugu horeysa waa statistigii sameeyey ta labaad waa presentationgi ta saddexaad waa mission iyo visionga uu leeyahay cellule d'écoute kani ta saddexaadna waa service-ku qabtay wax service-ka qabtaan marka haddaad click garaysiin statistiga click garaysiin waxaad arkaysiin troquenkay sameeyeen sanadkii ugu horreeyay bilaabay waxay noqday 2007kii sanadkii ugu dambeeyey ay sameeyeenna waa 2015 hadda 5 sano ku sokaysa 5 sano iyagoo aan leeyahay waxaan laga sameeyey tirakoobka laga sameeyey ay tahay wax alla wixii violence rag iyo dumar loo geysta ay leeyihiin marka waxay leeyihiin 2015kii waxaa cabasho soo gaadhay 1080 baa soo gaadhay 1080ka waxay leeyihiin 97% waa dumar 3% waa rag laakiin waxa wixii violence genre soo gaadhay maaha waa nin iyo naag wixii violence soo gaadhay violence wuxuu doono noqon karaa laakiin waxaan qasaasan rabnaa waxa weeji war intaa ay dadka cabasho soo siiyey maxaa ku jira habla yar oo violay maxaa ku jira waa in la ogaado talabaadan taladii u dambeysay semitrokobkii u dambeysay sameeyeen waa 2015 hadda 5 sano ka sokaysa waa ururkii dumarka ee Djibouti ee aadi ahaan inay hawshan hawl ka badan qabtaan ahayd wallahi intaasaan kuga tagayaa allahna nagu gargaaro waxaan hadda geli doonaa sujeegii labaad baan geli doonaa taamkii labaad baan geli doonaa aan halkaan igu soo qoray okay bal allahna gargaaro tani way dhammaatay okay رالي هذا warka teemka labaad ka hadlaya waxay tahay waxa weeji waa teem ku saabsan
ninka walaalkeena ee Belgiga jooga ee Commanda Iftin loo yaqaano Commanda Iftin baa la yidhahdaa Belgiga joogaa qaxootigu isku dhiibay ciidanka jandaarka Djibouti ahaa magaciisa Commanda Iftin waa awowgii weejiye waxa weeji waa laba magac baa lagu yaqaanaa Ali Cabdullaahi Iftin magacaan anagu aan ku naqaano way isku ciyaal baan ahayn isku ciyaal si tape program baan ahayn aad baan isku naqaanaa xaafadiisa waan tagay xaafadeedu imanayay Mustafa la yiraahdaa Mustafa Cabdullaahi Iftin mustaash baan u jirnay ninkaas askariga jandarada buliyo presidentska markuu dambeysaan uga haysan jiray halkuu kaga lug leeyahay weji waxaan isweydiinayno masaakarka alxiba ka dhacay le 18 décembre waxay arbacay ahayd 18 décembre 1991 bay ahayd halkaa dad badan oo canfara oo walaalihiina lagu laayay intooda badan dhabarka laga toogtay halkuusoo ku jiray talabaadna waxa weejiyey qarax baa ka dhacay 27 September 1990 sagaashaneedii September magaalada Djibouti Balaasmelig Café de Paris baa ka dhacday halkaana dambiga waxaa loo saaray dadaan meesha waxba ku lahayn oo lagu laayay oo community walaalaheena iyo kunagada bulshada dad badan dhibaato loo geystay bardan lagu laayay marka waxaan eegaynaa bal halkuu kaga jiray ninkana maanta aan nagala hadlayan leeyahay jooga Belgiga jooga Ali Cabdullaahi Iftin ama Mustafa Cabdullaahi Iftin waa nin naadeerkaya ciisaan isku nahay eelayaan isku nahay weli waxaa sii dhaafsan isaga dugri baan isku nahay waayo waxaa dhashay isaga islaangada bursiya oo makaahila oo reer axmedaa dhashay anigana waxay dhashay allahu naxariistee islaangada bursiya oo makaahila oo reer axmeda ilmaadeerna waa nahay dubrina waa nahay markaa Soomaali waxay tiraahdaa walaalka markhaatiga ku fur magtana la bixi su'aasha haddana meesha taalla waxay tahay war Ilyaasow dhowr iyo 30 sano maanta maxaad uga hadlaysaa arxibi iyo Café de Paris dhibti dad loo geystay waxaan maanta uga hadlayaa waxa weeye haddaa shalay ka hadli lahaa waxba laga soo qaadeen way ummadaydu ma bisleen ummadaydu wax ma raadineen ummadaydu madaxa dhulka ma qaadin waxaan ka hadlay dadka dibadda inta bidca jooga maanta waxay la soo xidhiidhay maalinta maanta ma dhawaanta muddaan dheeri la soo xidhiidhay inama reer Djibouti dibadda jooga waxay yiraahdeen ummadda reer Djibouti waxaan sameynay collective aan sameynay daba galaya wax alla wixii ummadda reer Djibouti dhibaato u geystay aad baan ugu farxay waa waxaan maanta u hadlayo maanta waxaan leeyahay waxaan aad oranaysid hadduu shalay ahaan lahaa nin iska hadlo min noqon lahayd oo faa'iido ma ahaateen laakiin maanta waxaan leeyahay malaha dhalintaaba qaadi doonta malaha kuwa kala sii qaadi doona malaha wax alla wixii ummadda reer Djibouti ciday doona ha noqoto alla ilaahay ilmaadeerada iyo walaalahay ma noqdaana ee dad dhibaato u geystay waliba iyagoo drees haysta u geystay iyagoo dreesida u geystay in la soo taaga maxkamad ma ummadaha kale ka naqanay ma dadka kale aan diidanay ma dadka kale aan ka liidanaa marka saasa loo ninka walaalkay Ali Cabdullaahi Iftin ama Mustafa Cabdullaahi Iftin ee jooga Belgiga jooga wixii aan anigu ku ogaa baan ka sheegay Cabdullaahi Ali Iftin Commanda Iftin arxibana waxbuu ku lahaa Café de Paris ku qarar xina wixii dadka tortureynayay dadka abtiyaashii dhibayay ay abti Ilaahay mad ka baqdi lahayn isaga ahayd marka tii arxiba maxaan ku ogay oo been sheegay oo Allah igu yeer afkiisa annakoo wala fadhina ayuu Iftin iga yidhi sidan soo socota hadduu beenaynayo su'aalan u hayaa
hadduu leey waan iloobay waxa lama iloobi karo waxaas wax la iloobi kara maaha markaa dad sii jeediya dad jiifa oo masaakiina madaxa rasaas ka saartay waxaad iloobi kari weliga maaha waa been waxaa taaniga leh wax kale maaha markaan ka akhriyey nin America Latin u dhashay America Latin waa kuwa isku laaya gang isku laaya cartel de drogada alaabta isku laaya ku yar oo isagu maskiin oo islaan la soo dhibaateeto dhashaa ku biira koox siduu u tuso ragga ka sarreeya inuuna naxayn ayuu qofku dooni dilay ninkii markii la wareysanay journalist tago the first markii wareysan la wareysan laga qaadaba noqotay ayuu u sheegaya waxa quraatay isaga dhibay wuxuu kale intaas soo boqol ayaa laayay wixii dadaan laayay waxa quraatay ka seexan laayay waa maalin uu booskaygu ii diray buu yiri inaan soo kharijiyo groupka naga soo horjeeda oo meel fadhiyay shan bay ahaayeen buu meeshii baan ugu tagay buu meel baan joogaa ima arkayaan buu markaasaan arkay shantii meesha joogtay afar baa kooxda wax naga soo horjeedaan la yahay ku yaroo ardayo jaamacadda ku jiro fadhiyay wax isku geey ma garanayo inay wax isku ahaayeen inay wax tahay laakiin yarka quraato buu jantadii buugii xisita ayaa la fadhiyay waan eegay buu waan jurcooday buu ninkii amarkaysiinay booskayga ayaan soo wacay buu wuxuu yiri boos diyaar baanay dadkii waan khaarijinayaa laakiin waxa quraatay dhibay buu inay yaroo shanaado ardayo waxaan ba aan waxba ka ogeyn oo buugiisiista meesha fadhiyo inuu saay dameerkuna ima fasaxay buu waan kari lahay inaan yarkaana ku daro oo shantaba dilo ma karay buu waan kari lahay ilaa ma waan gariiraya wuxuu keenay dhaaf sheekada dhaaf shanta ka shanaadna dil buu ardayna dil way markhaati baa rabtaa buu maxaad rabtaa qof waxa yiraahdo waan joogay maalintii soo sameeyay isagana khariji shantii baan dilay markaan afartii nin kharijeen isagii ku soo dambeeyay ayuu ibriyo adeer miskiin baana agoon baana waxba meesha waan iska imid oo waxa ma jiro arday baana waadiga arkay oo ana ooyayba ayaa madax ka saaray marka waxa ka soo wareegtay dhowr 10 sano ka soo wareegtay habeenka sibaan ku hawaawiyaa buu yarkoo si ibraya ana ooyo qaylana ka caabir marka waxaan uga jeedaa iftiin waxa weeye hadduu ilaahay ma xasuusanay waxa la waxaan dhici karay inaad ilowdid dadka bursiga abtiyaashaay ee torture ku dishay inaad ilowdid raggii joogay arxiba ee kolkaad leynaysay ku bariyay ilaahay ka baqulaha yakoo jiifay yakoo sii caymaday way 90% dhabarkaad ka toogateen marka arintu waxay tahay muxuu iga yiri wuxuu iga yiri la qaybsan walaalahay dhowr sano ku soo wareegtay iftiin isagoo annagoo fadhina oo isagoo markaa eeroos ku haysto inuu dalka badbaadiyay inuu kursiga ciise badbaadiyay ayuu ii soo dirtay igu sheegay say wax u dhaceen waa muxuu yiri wuxuu arbacay ahayd 18 ديسمبر 1991 bay ahayd shantii subaxnimo ay ahayd 7 nin oo soo tiriyay ku soo sameeyay ay xabad cafar ku jirin oo ciise u badan buu ciisana reerkaygu u badan yahay reer cigaal ayaa galay arxiba markaas u galayba aan meel dheer ka gaadhinba wada garanaysiintiina bada aqalada xirba aqalada gaagaaban oo cad bay ahaayeen laakiin markii dambe aqaladii waxa laga durdisay aqala looxaana dusha laga dhis aqalkii bidixda naga qabanayay buu aqalkii bidixda naga qabanayay oo dusha sara bandarada looxa laga dhis ayaa rasaas lagu soo furay buu waxa laga dhaawacay laba nin oo jandaaran labadii nin gooni baan u jeedinay yiri
waa markaa waxaan ka yidhi ku fura markaa qofba aabuuma eegin buuri ku caymadaya ku salaadu socda ku jiifa ku yar ku weyn qofba ma eegin buuri waan laynay markaa sidaa u layneen sii soconnay barhkoodna ay dhabarka wala tooganay intooda badan iyo kuwan aqallo ugu galnoon layna jirta buu yidhi dhimashadu way ka sii badan lahayd buu yidhi dhimashadu iminka halkan boqol iyo xoogaa leeyahay way ka sii badan lahayd ee waxaana soo kala dhex galoo na dhibaato noo geystay laba helicoptero faransiis waana run sheekadaa waraysta oo duulaysa na duubaysa oo filan laga duubaysa buu laba helicoptero faransiis oo armeed dalaarku leeyihiin ayaa duubaysay dhibtan dhacaysa duubaysa markay warkii maqleen kuwaas kolkaan aragneen dusha eegaan war ciiso ka soo bax meesha idhigu war tolkii oo ninkii khayracadan duubay soo bax markhaati ma karayneen markaadaan soo saaray buu kadibna waxaa dhacdaa la yidhi in rasaasyar dhaceen booliiska wax ka dhacay ma garanayo se u dhaceen ma garanayo turtuur yar baa dhaca layidhi laakiin ummadda reer Djibouti waxaan u sheeganaa waxay halkaa ciidanka arxiba galay 70 nin bay ahaayeen ciise ahaayeen tolka bay ahaayeen rag aad u hubaysan bay ahaayeen oo dhan ahayn ciidan military kuma jirin booliis kuma jirin dadku ay dad badan aaminsan dad baa muddo booliis ciidana galeen laakiin ciidan jandarmo baa marka su'aasha ka wada waxa weeye haddii waxaan imika leeyahay waxaan iloobi karaa maalinta way taabatay boom baan siiyay hadduu xasuusanayo anagoo isgara fadhina majliskii Angela ogaa dhibaatooyinka ay dolanku ay taan u siiyaan malaa iima soo celin boogaasi aniga moojaan dameerkayga si kala ahaa way taabatay marka waxaan ku farxiyay maahin in hadduu laakiin imika isagu leeyahay ma xasuusto sheekadii aan iga sheekeeyeen yarkeera kartel ku jira America Latin ahaa ee dadka leynayay waxa la iftino wax la iloobi karo maahin hadar waan garab joogaa هي هولان كل قرب جونا لكن واحد جيستنا عشان واحد ويجي نك السوري جبوتينا نك يسوق شقايس الصوصار واحد تاني قال واحد كلامه كان ما أنت تلمامي الصوصار اللي ورد وحي دعوة سماينا يو فرطة بارة رادية ما أنت ضد ويجران دي بدها الجو اللي باتوي لكو سميه ويجران ضد فربضان إنه كنا تلمامه kuwa kala jiraan haday jiraan dibada u soo baxaan ama meelihii joogan dacwadooda fura ciday doonaha noqoto alla ilaahay walaalka noqotaan ciday doonaha noqoto cid buu nixina ninba ninkiisa soo saaro jeebka ka soo saaro hana tilmaamo wuxuu geystay dad badan ma dhibaato loo geystay wallahi dad badan fara badan ayaa dhibaato loo geystay marka maanta waa maalintii aan afka fureenin hadeen hadduu laakiin isagu leeyahay waxaan oo Ilyas sheegay waa been oo dhici karta bilaadan weeji waa inuu isdaafaco waa inuu ka hadlo waa inuu wax yiraahdo hadduu ka hadlo aan jeclaan lahaba su'aasha quraatan weydiina waxa weeji wax kala ma iftin mustafa abdullah iftin ani adiga waan isgaraynaa soo fahmiyagan aad baan isku garaynaa rag badan oo qaaliya oo wanaagsan ma ku dhashay hadday mahdi noqoto allah u naxariistay ninkan weynay afirmiyayga wax ka idab badan adduunka ma jiro hadday noqoto Cusmaan oo aan Djibouti kala shaqeynay wax ka wanaagsan oo ka dad jecel ma jiro ilaa haddaan kuu sheego aniba Maxamed waa nin aad maskax badan adduunyada dhibaatadan baa saa ka dhigtee waa nin aad maskax badan dad jecel isna adigu waad ka duwanay caruuraha waad fududayd baastoolada maad dhigayn bal eega qof bil aadan ay maskaxdiisu ay ku fileen oo baastoolada haysta khamrina cabaya meelna kuma sheegay meelo badan ku kulanay meelo badan oo la soo baxday baastooladii halkaa ilaahan baa ka dhigay in xaaladii la xaliliyo oo laga qabto oo waxa jecel lagu sameeyo laakiin bal waxaan isweydiinaya waxa weeye inta reer Djibouti inama iyo habla aad awooddaada iyo maskaxdaada gaaban ee dhibaataysan aad dib ugu geystay ee maanta dulku jiray iska aamusa balaag way badan yihiin dadku
laakiin teena hor soo noqon waxaana idha haddaad diiddo tiri ma jirto way dhici kartaa xaq baad u leed inaad diidid xaq baad u leed inaad tirahdid waxa wax jira maaha ninka wuu samaynayaa ninka reerkaygu nacaa si dad badu yidhahda reerkaygu nacaa sidaa reer kala jecelahay waad oran karaysaa dhibaato ma jirto laakiin hal su-aalaan ku leeyahay waxa weeye commandant iftin waxaad ahayd nin commandaha askariya oo xerada ku xidhan marna xasan guleed baad daba joogsan jirta marna waxaad haysanaysaba ragga meesha haya berisanska ilaaliya nin mas-uulo weyn baa tahay oo tirsanoo lagu tirsanaa hadday adiga ahayn ninkii maalintii arbacadii 18 December 1991 arxibo xoogga la galay ee dadka walaalaheena laayay haddaad adiga ahayn waayo qofku waayo askariga la galay ciidan ma noo sheegi karta qofkay tahay haddaad sheegayna deeyaakashood ma ogi ma odhan karaysa waa been jabuuta dhex joogta waxaan annagu maqalay shicibka caadiga reer jabuuta maqleen in halkaa dad lagu laaya askar gashay hadduu ninka askariga ofisiyeega dareeska sida adigoo kale yidhaahdo wallaahi ma garanayo wax galay waa waxaan dhici karin de marka taas ayaan kaaga fadhiya haddii ay tahay laakiin midna ogow ilma adeer baan nahay dabrina waa nahay oo ku garab joogaa laakiin inaan runta sheegno waa xaq weji inuu nin kastaba ninkiisa ku shaqo soo saaro soo dhiga banda waa loo baahanya maanta waa maalintii haddii reer jabuuti ay weli shirka ka qabaan waxay qaban karayaan dad fara badan baa saa dhibaatooyin ku geysta hadday noqoto suudaan isbeddelkii markuu yimid dhowr iyo soddon nin baa lagu xukumay dil oo iyaguna tortuurka dhibaatada geystay nin kale waxaa jira etoobiyahan jiro berigii xisb qoladii mangistu ku jiray waxaa isaga la yidhahdaa eshetu alamu baa wuxuu joogayey Holland buu joogay markii ciidankii magistu waryar ha lahado ciidankii magistu buu ahaa sargaal sare buu ahaa marka dhibaato uu ku sameeyey markuu halkaa magistu jooga magistuna in badan buu maqaya soo maha Holland buu u tahriibay qaxooti buu isku dhiibay waa la ogolaaday dhalashadii baa la siiyey halkii buu iska degay halkii nolol ka samaystay laakiin wuxuu ilaahay soo kiciyey dad Etoobiyana oo xaq raadinaya sakoyna ma dadkeena wax ku dhacay ma garan kuwii baa dacwad furay kuwii baa daba galay kuwii baa doodoonay dad uu dhibaato u geystay waxay soo heleen wax kale maaha isagu dad uu laayay maaha director u laayay maaha dad la soo xidhay 70 nin oo la soo xidhay oo xerada lagu soo xidhay ciidanka ayuu daawanayay markay dadkiisu leeyeen askartiisu leeyeen wala dad la soo xidhay ayaa askartiisu leeyeen isna uu daawanayay sadir amarka uu bixiyo wasiir uu ka qaban lahaa hadduu doono kama qaban arrintii baa daba socoto waa dhowr iyo 40 sano kadib isagoo Holland iska dego iska raaxaysanayo iska nooloon dhalashada iska qaato iska xariidinaya ayaa laga dabeeyay maxkamad baa la saaray dhalashadii waa laga qaaday hadda Holland buu ku xidhan yahay maxaa lagu xukumay avi baa lagu xukumay prison avi ayaa lagu xukumay wataan leeyahay de ummadda reer Jabuuti haddaan ka kacnay inta dalka joogto waan ognahay dhibaatooyin badan baa haysta inta dad joogto waan ognahay dhibaato gaajo iyo baahi iyo shantaaj lagu ciyaaray iyo cabsi iyo hadidaad iyo jijib iyo qolqolo loo kala jibiyaa lagu haystaba war intana dibadda joogto wax ma samayn karana xaqa waa raadin karana haddii ummad xaq xardaro lagu sameeyey haddii shakhsi xardaro lagu sameeyo raadin karana balan isku tagno wuxuuna sameeyno han dhaafno waxaan clivage-kan iyo clijabkan waxaan dhaafno oo bal wuxuun maantana waxaa la hambali dhalinta Yurubta iga soo wacday ee iyaku waxan baan sameeyey leh Yurub way badan tahay iyaku Belgium bay joogaan kuwa kale iyakuna dibadaha joogana wax sameeyaan leeyahay kuwa halkay la joogana san sameeyaan leeyahay kuwa Mareykan joogana sameeyaan leeyahay balan isku tagno oon xaq raadino wixii dalda dibay aan ka hadalno waxaan tagaynaa haddana iminka bal dhibaatadii ka dhacday Café de Paris Café de Paris habeenka
ilaahay beenimo sheego igu sumo waan joogo markuu qaraxu joogay ma joogin laakiin markuu ay qaraxu dhacay ummadihii ugu horreeyey imid baan meesha nasiib ku jiro guudkan ka imid khayra allaala markaa wasiirka antireerka ahaa meesha la joogo tariigu baktiisan yahay hadal haayo oo booliisku joogaan baan imid halkana dhib badan baa ka dhacday waxaan halkan caawa ka sheegayaa ay bishu ta 3 bishii 2020 2020 ay tahay wuxuu ilaahay igu ogyahay oo duudna igu jirin oo odhan kara ka tarwaanzinaf ummadda kaafeedda baari dhibaatada loo geystay loo saaray dhabarka loo saaray inay meesha waxba ku lahayn dadka walaalaheegada buursi ee weliba anigu toosan abtigu toosan inay arrimahaasi waxba ku lahayn baan garanay laakiin ha noqotee iftinaan ku soo galiftiin wuxuu dadkii dadka toorsuleynay way garanayaan dad badan haddii afka biyaha ka daadiyaan hadlaan gada buursi iyo cidda doon ha noqotee way garanayaan inuu dadkii loo geeniyay torture ku sameeyay dadka garaacay ay xitaa iyagoo bari oran jiray war alla ka baq iftinow maxamed mustafa abdillah iftinow alla ka baq oo laga daabtiyaasha baan uu iska diido garaacay barkood dhimasho ay noqdeen barkoodna maanta aan la intii dhimatay loo naxariisto intii noole sakeen la nool waxaan kale nahay ilaahay caafiyo gacan gardraahay waxaan ogahay haddana weliba aan sheegay runta dad badan oo gada buursiya oo la shaqaynayay iftan oo la tilmaamay oo xaafadadka ugu geeyay kuwana way joogaan kuwana ciddii garanaysa si fiican u garanaysa farta ku soo fiiqano iyagana soo dhigaan si kale si maaha waa inaan runta isku sheegno oo nimankiis jeeb ka soo saaro markaan mar cadaalad raadin karaynaa to cadaalad laan garaynaysa meel lama gaadhayso alla noolma gargaarayo haddaan idhaado kayga waan qarin ka kalmaan waan ogahay dad baa jira midab bulsiya oo la shaqaynayay oo xaafadaha u raaraacayay oo tilmaamayay oo kan weeji lahaa dadkaana wallaahi waxba kuma ogeyn waxa kama jiro laakiin intaan caawa nii sheegay waxay tahay weeji kaafeedda bari maxaa loo qarxiyey ayaana qarxiyey maxaana soo looga lahaa kaafeedda bari waxaa loo qarxiyey ee ummaddaa gada bursiya aanan abtiyaasha ama walaalahaya aanan dhibigeysan dhabra loo saaray waxay xurguf baa ka dhacay Soomaaliland xurguf ayaa ka dhacay Soomaaliland xurgufta ayay dhexmartay xurgufta waxay dhexmartay reerka dalkaya ee Cabdiraxmaan Celay Maasal la yiraahdo iyo gadbuursiga dhexmartay isla markaa kaafeedda Paris la qarxinayo horteed waxaa tagay dhulkan Somaliland زيلا يلوغ هيا اريا تاغي تoddoba oday oo maasana toddoba oday oo maasana ayaa tagay toddobadan nin dhowr baan ka xasuustaa way dhinteen barkood Allah naxariistaan leh mid wuxuu ahaa Idris Umar Geel Su'aal Umar walaalkiiba mid wuxuu ahaa Daar Ciiso Jabuuti directorka ولي النور يهان مرايا سوق كنور هاي ما أنا كنت بشيء سوان مقله دار عيساد نك لو ها محمد قيل له ونجرو إن بفر الله ما صار بفر الله وناس كيس ينجرو أفرتي كراي جم قان يتضمن بيكو تجاه ما حي كدون المش وأرونا كلكو بربر كي دعي غير كسبوا سأبالوني ديكو عيسان إسكم أبالوني waxay la reerka mamaasanay dhibka dega wuxuu u soo xaasibiya u soo hagaajiya ciidan u sameeya kooga in lagu soo duulin beelan ma fikrad fiican ba ma fikrad xun ba waxa taas ma joogna ma kaaran waxaan joognaa meeshii kolkii ay tageen baa dhibaato kula kulmeen dadkii gadabuursiga meeshii u deganaa waa la isku hanjabo wala dili gaar
isla markaana khayre allaale oo wasiir aad u wanaagsan ahaa oon been ka sheegeen nin alla cabsi lahaa nin diini ahaa ayaa markuu warkii loo soo tuugay layidhi toddoba oday oo reer Jabuuti ka talooda xuduudku halkaa joogta ayuu markiiba afkiisa ka yidhi oo dadka reer Jabuuti maalqabeenkow kuwa cilmiga low kuwa oday dhaqameedkow kuwa waayeelkiinow dowladda jaarkeena ee Somaliland ama Soomaaliya dhibaatada laga daayo wuxuu yidhi raggaasina markay dalka soo galaan alla ii keeno alla ii xidhi buuyi ragguu xidhaya laakiin waa rag culus isla markiiba wixii waa la maqlay isla markiiba waxaa loo sameeyey complo in laga dhigo wasiirnimada oo been la sheego oo la yidhaahdo khayre allaale wuxuu la kulmay axmed diini allah u naxariistay hayeygii calanka soo geliyey ayuu ubax kula kulmay yidhaahda magacuu kula kulmay soore cadan waa laga qaaday baasaboorkii airboorka laga qaaday shaqadiina waa laga qaaday sidayna ku dhammaatay laakiin markii urgufta halkaa ka dhacday toddobadii oday way soo noqdeen dee way u sii koontaradubis iyo xasan guuleed allah u naxariistay ismaaciil cumari iyo xulufadoodii dee ay isku reerka hayeen wixii waa laga xanaaqay cabasho kalena wuu sheegeen ay yidhahdeen malaha dadkaygii baa badh gadabuursiba halkaa ku laayeen cadhadii uu ka qaaday markaana waxaa jirtay xurguf yaroo dhex taalay gadabuursiga iyo saaqa kolka Somaliland la eego oo avaniga markaan dhegeysan jiray BBC la dhegeysan jiro oo dhib badan baa jirto waa la isku bilbilaabi jiro dhibaatooyin badan baa jiraysa markaas arrintaas u dhacday loogu sheegay waxay isaga Ismaaciil markiiba de waa nin xasan guuleed ma odhan karay odayska waa yeelu ahaayo in aanan cilmigan siyaasadda wax la samayska shaqadiisa ahayn laakiin Ismaaciil wuxuu nin SDS buu ahaa nin service security-ga haysta buu nin tababar badan ku soo qaatay buu ahaa isla markiiba complogan buu diyaariyey wuxuu yidhi qarax inuu sameeyo qaraxaana dhabarka u saaro reerka gadabuursi marka laba shay buu ku doontay kaafeedda Paris ay qaraxu sameeyeen dadkan ma guro xitaa hadduu doono wax laakiin qarax wuxuu sameeyey laba shay buu ku doortay kaafeedda Paris labada shay waxay noqotay kaafeedda Paris odayga la inuu oday saaqa noqdo marka labaad kaafeedda Paris wuxuu la tartamayay oo kliyanteelka ka qaatay Melelek hotel Melelek marka intiina garana hotel Melelek waa nin sheegay hotel Melelek isna xabashada lahayd islaamta xabashiyada inan bay Ismaaciil u dhashay ninba kama qarsoonade ma kuma caayo wax naflagaada maahane waa ilmo iska jiru dee uu og yahay oo xitaa markuu roob la colhayo allah u naxariistay Mareykan joogay la joogayey ma ilmo dafiraya ama ilmo diiday maaha ma ilmo dadka odhanaya ma jira ma odhan karaya wuu jiraa inankaasi waa nin weyn iminka islaantaasaa u dhashay islaantana beriguu tegi jiray hotel Melelek tegi jiray buu la saaxiib ahaa islaanta odayro tabcaan oo guraaga qabi jiray odaygii iyadaa rasaas ku dhifatoo ku dishay Jabuuti taariikhdana soo baaray ogaanaysa way dishay rasaas bay ku dishay odayro mooriso inuu kuuliya shaqaaleeya dhulka masixi jiray waan tegi jiray ama waan garanay si fiican baan garanay marka odaygii dishay oday isagaa soo daayay wuxuu soo daayay waxa weeye hotel Melelek dee islaanta laba inan ule marka dana badan ka soo galay kolkaas siduu u kliyanteelka uga dhaqaajiyo cabsi u geliyo meesha in la fariisan waa number 1 number 2 waxa weeji waa isaaq baa loo haddii aan gadabuursi dhacdo kolka wax la aamini karaya de marka halkii buu ku dhibaateeyey oo ku dilay oo ku jirtilay dad gadabuursi walaalaheen barkood ay ku dhinteen barkood daawacii maanta way la haystaan laakiin waxaa la ummadda reer Jabuuti bal maanta allaheena allah ka baqno waxna hadalno wuxuu dhaar balinba wuxuu yahay ha sheego maanta way jiraan reer Jabuuti iyaguna aan ogaho diyaar ah inay collective ka sameeyaan oo la daba galo wixii dad dhibaato geystay
laakiin waxay rabaan wax prime bay rabaan de meeshaan dooni gee haddii prime jirin waa dhibaato dhalinta reer Djibouti hadda ma ila soo hadashay ee igu qasabtayna waxaan ka hadlana waxaan kale waxa weeji walaalahay hambaliyo allana hani gargaaro waxaad nooga baahantiin ila soo hadla waan gargaar diyaar baan u ahay mid quraata sameeyo iyo kun inkuna in wixii wuxuu noqday muxuu ahaa alaabtii nibariga isku noqday informatiga isku noqday website seed sameeya seedka information inuu la geliya haddii qof warqadaha ayana warqadaha nii soo diro qof hadduu markhaati hayo nii soo sheegana nii soo sheego qof hadduu video hayana video soo sheego magacada la soo tiriyo la soo dhigo inaad meeshii nugnaad samaysiin oo hawshii lagu dhaqaaqo ummadda kale joogtay reer Djibouti dibadaha joogtay waxa kale inuu saa ugu dhaqaaqo bal maanta han isku dayno dad dul loo geystay xaqooga inaan siino hadday noqdo hablaha reer Djibouti cafarnimo lagu fuuli kadib onski lagu faruucmay xafar baatiin daraadeed ay ciidankii kii faruuxweyn cidday doonaan noqdaan ay Djibouti dhex joogaan diriis sidaan ina kuwaana garab joogsatiin la hadashiin oo wariisatiin faadimo daabal gabadha libaaxada atraadi information la si waa ay dadkan dadka yihiin oo sawiradooda soo dhigna meesha oo hadday dhoofaan dibadda lagu qabto waa loo baahan yahay marka wallahi kumaan talagelin inta nigsan nigu dheereeyo waad raali ahaanaysiin way cajalada waa cajalad aad iyo aad iigu jirtay qalbigayga baahayd laba teema aad ii taabanay ahaayeen waqti badan bay iga qaatay maanta anuu duri igu dhacna waaniga yidhi wixii iska dhammee allana ha igu gargaaro haddii aan khaldamayna walaalahay raalli ahaada haddii aan dad ku gafayna raalli ahaadaan walaalahay ii dambi dhaafa bashar baanahay tabcaan baanahay wanaagu maan rabaa inaan xaqa sheegno maan rabaa dee taasaan leeyahay walaalahay raalli ahaada intii xanuunsanna allah hadda caafiyo intii dhimatana allah u naxariisto intii dulin ku jirta ee gacan baadal ku jirtana allah ka soo daayo ummadda reer Djibouti allah qalbigooda adkeeyo si dulunka iskaga qaadaan waad mahadsantihiin ha noolaado shacabka Djibouti ha noolaado dalka Djibouti inaguna noolaado walaalahayo sidaa waxaan niga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo sarag dambe kulli anigu ma awoodo inaan maaliga soo gala ma awooday rag badan baa iga badiyo oo maalin kastaba suushiye ka hadli karay way fiican yihiin anigu ma karo wax badan oon aad uga fiirsado oon habeenna dhan ku seexdo oon meel kasta ka rogrogo oon meel kasta ka eego oon maahina ma karayo dee awoodda iyo kartida iyo aqliga fiican malihi een ku hadlay maalin kasta laakiin markaan soo galay dulqaata haddaan nigu dheeraaday dulqaata sidaa waxaan leeyahay dee isarag dambe insha allah iyo suushiye kala daado alla nafta noo daayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantiin